خالد محمد حاشي ونين دلنيرا oo ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ma xidho mana gashado shaad ama koor ka celiya kuleylka iyo dhaxanta ba'an ee dhacaysa waxa uu sheegay intii noloshiisaba inaanu gashan shaad ama koor isla markaana aanu dareemin dhaxanta iyo kuleylka Khalid badanaaba waxa lagu arkaa oo uu taagan yahay iskooysyada iyo jidadka laamiga isagoo si mutadawacnimo ah u kala hagaya gaadiidka maraya wadada haddaba waraysi kooban oo saab TV la yeeshay Khalid Maxamed Xaashi ayaa ugu horeen ku weydiinay muddo intee laga ayaadan xidhan shaad ama husare maxaa ka difaaca kuleylka iyo qabowga dhaxanta ee dhacaya ilaa 2018 ilaa 1992 intaaba bila shaad baan dugsigeygii hoose ku dhameystay kaygii dhexe ku dhameystay Khalid waxaan ku weydiiyay dhaxanta iyo kuleylka maxaa ka difaaca maadaama firqaawunti saacad kasta wadiyo horta anigu hadiyo jeeraale waxaan aqaanaa cuntooyinka dabiiciga oo aan cunaayo hadiyo jeeraale ma garanaysaa cuntada bariiska iyo basta dadku cunaan baanan inta badan u badnayn laakiin waxaan u badanahay cuntada dabiiciga ah waxa weeye hadii aan laba rooyay hadiyo jeeraale cadceedu waxay leedahay shay la yiraahdo qabs laakiin waqtiyada qaarkood la iska yar ilaaliyo harka laga yara galo qabowguna la qabsi buu leeyo jirka bini'aadanka hadiyo jeeraale dharkan ay bini'aadanku xidhan yihiin waxay ku sameeyaan huurka markay ku sameeyaan qofku uu dhididaa dibadana nuglaanba ku keenay hadhow tooliye qabowgaan kala laakiin aniga jirkaygu dhar lamu qabsan maadaama aanu la qabsanin hadiyo jeeraale waxaan ka baqaa haddii aan isku dayo inaan dhar xidho ama ay dhacdo garanaysaa in aan isku dayo inaan dhar xidho karo maanta bacadlaa tago suuqa ama dhar ka soo iibsado kale inay surwaal soo iibsado mooyee shaadh inay soo iibsado isku mid day karo waayo taana waa la ogolayn aniga laftirkayga hadiyo jeeraalna waxaan jecelahay dadka masaakiinta wixii igu hooseeya markii aan waxayo inkasta anigu inka gacanta wax ku haynin laakiin markaan waxayo ilaahay baa hadiyo jeeraale waxaye inaan aniguna wuxuu qabto hadiyo jeeraalna waxaan jecelahay cid kastoo Somaliland daroo Somaliland qiimaysa oo Somaliland kor u qaada inay walaalaha yihiin oo aan namideeyo dadka Somaliland waxaan faraya heere waxaan u baahanahay waxqabadka ayaa wax la qabsanaya oo wax la tabcanaya baan leeyahay hadii jeeraale gaadiid Khalid imika hadii aan dhab ku keeno aan koor iyo suuq ruuxan ku soo jiro ma waxa la xidhan maayo gashan maayo niyo hayo koorka iyo suudka layma ogolay laakiin surwaal waa leeyo guliyo kiiso hadii aad maanta surwaal keento wax laga yaabaa inaan ka qaado in surwaal ka xidho laakiin koor iyo suud iyo waxa aad keento waligeed deemaan gashan qofka bilaadanka waxaan u gashanin ما هاي إنه هذه الشارع على إسكو قصر. مرة ما إسكو ده حياته. دور قروان إسكو ده نحدو. لكن بركان يروحون با ما بكرة يبقى حياوه حتى ما بكرة حاجة سرتهم با يبقى حياوه. هو حالي له أمرنا وليد إسكو ما أنا نقول مقرن تحلوشين إسكو ما تحلوشين. أوكي. دحنت هذا عايزين من قبل جهر جسكت شراع. لو هرت دتكو كعمل يوكورن حلم ماركان وقت جيد وين بديده. وقت جاي دحنت شفتوا وقت جاي بديده بقى. Khalid Maxamed Xaashi waa nin si weyn looga yaqaan magaalada Hargeysa waqtigan oo cimilada Hargeysa tahay mid aad u qabowna ma xinna husare taasina waa su'aalaha ugu badan ee markasta ay bulshadu weydiiso